Wafdi sare oo ka socda dowladda Turkiga ayaa maanta soo gaaray gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya iyadoo isla markaana halkaas uu ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale iskaashiga caalamka ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdisalaan Cabdi Cali. Dhanka kale wafdigan iyo sidoo kale wasiirka ayaa la sheegay inay ka wada hadleen iskaashiga laba geesoodka ah ee u dhexeeya labada dowladood Turkiga iyo sidoo kale Soomaaliya. Intuu socday kulankan, wasiirka ayaa kaga mahadceliyay dowladda Turkiga taageerada joogtada ah ee la garab taagan tahay Soomaaliya, gaar ahaan ilaalinta midnimada, madax-bannaanida, wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya. Kulankan waxaa sidoo kale ka qayb galay Mudane Cali oo ah agaasimaha guud ee arrimaha Afrika ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Turkiga iyo sidoo kale Alper Aktaş oo ah safiirka Turkiga ee u fadhiya Soomaaliya. Labada dhinac ayaa isla qaatay in la sii xoojiyo wada shaqeynta joogtada ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale Turkiga.